السلام عليكم أصحابتي ku xiran channelkan Muslim Media fadlan hadii ugu cusub tahay saar subscribe like share hana hilmaamay inaad muuqaalkan si share gareyso dhamaanteena waxaanu danaynaa aragtida dadka kale naga qabaan sidoo kale waxaanu ku dadaalnaa inaan noqono kubbala jecel yahay hadaba waxa jira waxyaabo yar yar aad sameyn kartid taasoo saameyn weyn ku yeelan karta sida ay dadka kale ku arkaan maanta waxa ku soo gudbin doona qodobo kuwaasi ka saaciidi doona si aad ku dagi lahayd qof kale qalbigiisa la barko adeegso magaca qofka dhamaanteenu waynu jecelnahay magaciina in lagu waco sida darteed had iyo jeer isticmaal qofka magaciisa marka aad u yeerayso iska ilaali naanasyada iyo magaca asiga dhibsanayo inaad ugu yeerto waa hubaal midaan waxay sababi doontaa inuu qofka ku jeclaado waliba ku xishmeeyo lambar 2 dhol caday waan ogahay talaabadan inay u muuqato mid aad u qosol badan laakiin waa habka ugu fiican uguna awood badan in qof lagu soo jiito waxaan ula jeedaa in isla markiiba aad abuuri kartid fariin farxadeed hadna aad u diri kartid qof kale fariintaani 99% waxay dhalinaysaa inuu ka jawaab celiyo qofka kale qaab dhol cadeen sida darteed markasto aad waqti la qaadanayso u dhol cadee una muuji inaad ku faraxsan tahay waqtiga aad la qaadanayso waa hubaal wax badan ay noloshaada ka bedeli doontaa lambar 3 joogtee xiriirka indhaha waxay door weyn ka ciyaaraan saameynta qofka kale aad ku leedahay qofka kale indhihiisa marka aad eegto marka aad wada hadlaysaan waxay muujinaysaa inaad tahay qof kalsooni ku qaba noloshiisa waxayna sababaysaa soo jiidashada qofka kale xiriirka indhaha ayaa muujinaya furfurnaan iyo daacadnimo taasi oo ogolaanaysa qofka kale agtaada inuu ku dareemo xasilooni iyo walwal la'aan lambar 4 dhageyso ma ahan kaliya inaad dhagahaada ka dhageysato waa inaad u muujisaa feejignaan marka uu qofka kale kula hadlayo ama aad u sheekeynayso midkeena ma jeclo in laga mashquulo marka uu hadlayo qaladka ugu weyn aan sameeyno ayaa ah in waxyaalo kale aan ku mashquulno marka qofkana la hadlayo sida inaan mobilka isticmaalno iyo waxyaabo la mid ah oo muujinta inaad tahay qof daneynaya sheekadiisa waxay kugu saacidaysaa inuu ku jeclaado qofkaasi lambarka 5 oo lambarka u dambeeyo umuuji naxariis badanaa dadka waxay iska iloowaan waxyaalaha soo mara inta lagu gudo jira maalintaasi u fidi caawinaad iyo naxariis markasto ay suuragal tahay tani ma iloobi doono qofka waxaadna ku yeelan doontaa saameyn waa huwaal 5 qodob haddii aad isticmaasho in noloshaada wax weyn uu ka bedeli doona fadlan hilmaam inaad saarto subscribe like share muuqaalkana si share garee mahadsanid